wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera waxaanu xariga ka jaray xafiis uu yeelan doono ururka ay ku boobeen ganacsatada Soomaaliland waxaana uga warbixiyay xafiiskaasi gudoomiyaha ururka ganacsatada Yuusuf Cali Nuur sidoo kale waxa isagu halkaasi hadal ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Yuusuf Cabdi Cali waxaanu sheegay ka wasaaradahan inay u baahnaayeen xafiiskan oo kale si ay uga xiriiraan ganacsatada kala duwan ee ka howlgasho gobolka Saaxil iyo dalka intiisa kaleba waxaana yiraahdeen maanta ururka leeyahay Sofa ururka ganacsatada iyo kalaansi Soomaaliland zacatul wasiir waxaanu ka dalbanaynaa inaan ururkan maanta noo furtid oo ah urur ganacsato ka shaqeynaya danta ummadda danta Soomaaliland mumkin muddo sanad iyo xogaa jiray wixii warbixin dambana waan ku hadli doonaa zacatul wasiir noo fur waan ka dalbanaynaa furtid inuu ku dhisnaado arrin kasta isqadarin isqadarinayo isla eegis arrin kasta oo yimaada isqancin qawaaniinta iyo shuruucda iyo xaaladda duruufeeda dalku marayo kolba la isla eego la isku qanciyo isla jaanqaad in nidaam kasta isbedelaya la isla jaanqaado oo haddii la tababaro shaqaalaha kastamada ganacsatada kala duwan ee hawlaha noocan ku hawlan iyagana tababarkii iyo la wadaagii loo baahnaa haday shuruuc tahay iyo adeeg iyo qalab haday tahay iyo haday xirfado kala tahay in la wadaago geesta kalena waxa uu wasiirku kulan la qaatay shaqaalaweynaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda ee ka howlgala waaxda kastamka cashuuraha bariga sidoo kalena waxa uu kulan la qaatay ciidanka tubataariyada ee ilaaliya cashuurta dalka halkan jooga shaqaalaha kastamka Berbera meeshaynu joogno kastamkii Berbera oo xafiiskii maamulka waxa halkan jooga shaqaalihii dhammaan kastamka Berbera waxaan warbixin kooban ka siin doonaa kastamka Berbera adigoo aqoon badan u leh shaqadiisa iyo soo shaqeeyo aan wax badan kaaga sheegayn laakiin waxaan doonayaa warbixin kooban oo xaaladda taagan iyo shaqadu soo socoto in si kooban ku siiyo wada shaqaynta hay'adaha dawladda ee kastamka Berbera xiriirka la leeyahay waxay ka kooban yihiin 5 qaybood dekada oo Berbera DB World booliska oo ganacsatada wasaaradda ganacsiga oo xafiis ku leh iyo quality controlka ama tayada oo iyaguna xafiis ku leh waxa laga rabaa shaqaalaha kastamka Berbera nooc kasta oo wada shaqeyn ah hay'adaha ay leeyihiin inay kobciyaan maaha hay'adaha oo wada shaqeeysan in daba socotaan iyo waa in ay ka horeeysan isbeddelada badan baa iman doona waa in sideeda uga qayb qaadataan isbedel marka la yiraahdo uu dhib badan yahay oo inuu ognahay dadkeenuna way ku adag tahay inay la qabsadaan balse inuu isbedel yimaado oo dhaco waa qasab hadii kale ma noolaan karaynaba sidan si ka duwan inay u noolaano ayaa waajib qaran ah waxa la inaga rabaa maadaama wasaaradda maaliyaddu ay tahay wadnaha wasaaradaha qaranka oo la rabo wasaarad walba inay halkeeda ku waraabiso كو دخلي أو قرا هرتا كما شقينه لكن دخليه ومدانتنا كوبات أمني جينو كشقينا وحلا رباب دمان بدأ عداها سوق لي النوع كسو ضدك يدلك بوحيالية هذا الشغل كله إن اللي سعود سيسان وأكتهينو ضدك وحكون عي حنونا فربضان عملها كانتا وحنا وحكينا الدوادة يراشينك raashinka iyo dawada waxa la rabaa in aad u eegtaan tayadooda u fiirsataan halka laga keenay hubisaan intaasi kadib waxa uu wasiirku soo indheeyay hamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa noqonaysa socdaalkiisa markii koobaad ee muddadii loo magacaabay wasiirka wasaaradda uu ku soo gaaro xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera waxaana la filayaa inuu u sii kicitimo dhanka gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco وعبد الرشيد مبارك عبد الرشيد سول تلفزيون كعالمي Somali Cable Berbera